Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta. Waxaa inoo socday casharkeenii ku saabsanaa sida loo sameeyo APK ama application kaasoo ku isticmaalaysa Android mobilkaaga ama YouTube-kaaga aad uga dhigan lahayd app aad ku isticmaalaysid mobilkaaga. Marka casharkan waynu bilaabanaynaa. Waxaan ahayn website-keenu ka sameynay waxaa appgeyser baa la appgeyser.com. internetka xoogaa yara cusub hadii kale noolanayaa si in dashboardkeenu tagno si toos ah aynu soo kacsanaynaa. saas ayuu noogu soo saarayaa. waxay noo joogtay inaan edit garayno. maanta casharkan wuxuu ku saabsanahay sidaan ugu dari lahayn tabs kale aan u edit garayn lahayn application-keena u qurxin lahayn xoogaa iyo sidaan usoo dejisan lahayn way noo dambeynaysaa. laakiinse maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaan editing ugu samayn lahayn. saan markuu kugu soo baxo maalintii ayaan intaan basic-ka aynu sii aragnay casharkeena hore ayay basic-kan ku baranay oo halkaas waxay ahayd basic-gaas channel-kaaga URL-kiisa ayaa laga soo gelinayay. halkaa split channel-kaaga wuxuu ku saabsan yahay halkaa app-kaaga magaciisa app name-ka waanu soo gelinay. app name-ka aynu soo gelinay iyo app version waynu soo sameynay. version-kan hadda waa 4.1 waynu kordhin karnaa iyo description-keenu soo sameynay iyo icon sawirka aynu soo gashanay iyo app team oo teamka app-keena ah iyo mobile-kan aynu niri app-kaaga hadba suu ekaanaya halkan kala socon kartaa. casharkeena hore dib ugu yara xasuusino review haddaynu ku sameyno intaas ku saabsanaa. maantana wuxuu ku saabsan yahay sida tabs-ka wax loogu daro app-kaaga ugu soo darsan lahayd tabs cusub. tabs-ka aad kana bedeli lahayd. hadda inoo soo saaro halkan xoogaa internetka yara culus. waa ka inoo soo saaray. channel-keenu waa ka halkan oo ka isticmaali kartaa ka eegi kartaa wax ka bedeli kartaa. maanta waxaan ugu soo darsanaynaa tabs wax la yiraahdo inaynu channel-keena kusoo darsano tab kale yacni sida inaynu u sameyno home page oo kale. waxaa ku dhufanaysaa halkan add tab ay ku qoran tahay. waa kuwa taababka ku dari karta waa ka home page-kii website blogger page manual pages pdf waa ku darsan kartaa tv shows waa ku darsan kartaa calculator waa ku darsan kartaa html kaas ku darsan kartaa documentigaas waa ku darsan kartaa meel xogta aad ku keysan kartid newskaas ku darsan kartaa. youtube isaga channel-keena ba ahaa laakiin hadda waxaynu ku darsanaynaa home page waynu ku darsanaynaa. home page markaynu ku darsanayno halkaa waxaynu ku qoraynaa qoraal bottom-ka aynu ka dhigayno manage baynu halkaa ka dhigaynaa. image-na waynu soo gelinaynaa. waxaynu soo gelinaynaa loogada channel-keena open baynu leenahay. saa markay noogu soo baxdo color-ka nooca doontaa ka dhigan kartaa halkaas ka dooranaysa iyana
kuwaas aad dooran kartaa, kuwaas ka dhigan kartaa. Adigu hadba noocaad xiisaysid ayaa ka dhiganaysaa. Halkan background picture yani picture ka dambeeya ayaa soo gashaysaa background ah ayaan isna soo gelinaynaa. background picture loogadeena nooc kale aan soo gelinaynaa. halkan waxaan sii oranayna soo u ekaanayna tus. waxaan soo gashan karnaa waxa loo yiraahdo oo kale background color xitaa midab kale halkan oo ka dhigi karnaa laftirkiisa hadaynu sawirka aanu ka maarmin. laakiin inagu hadda sawir baynu ka dhiganay uma baahnin, iska dayn karnaa. halkan text aad ka dhigi kartaa ama rows, laakiin rowskaas fiican. submit ayaa odhanaysaa markaad dhammaysid. saas kugu saarayaa taabkaagii hore iyo taabkan dambe. hadda keeni horaan ku dhuftay. tan saa inoo tuso waa kaa. waxaynu u samaynay backgroundka oo waa kaas ah, iyo waxa kale aynu u samaynay row oo intaas ah, iyo picturekaas oo loogadeena ah, iyo magaca aynu ku qornay. halkan laba magac baynu iska hoos qornay, mid kale waan ku qorin karnaa oo halkaa waynu ka bedeli karnaa. aynu dib ugu noqono. ku dhufanaysaa home page-kaaga ku dhufanaysaa. waxaa ku dhufanaysaa halkaas ku dhufanaysaa si aynu halkaa magaca uga bedelno. halkan waxaynu ka dhigaynaa tusaale ahaan halkan riix si yacni uu qofku markuu channelkeena doonayo oo halkaa uga sii dhex galo. intaasaynu ku daraynaa. submit ayaynu odhanaynaa. haddaynu aragno siduu afkeenu u ekaanayo. halkaa waa kaa magacaynu ka bedelnay. hadaynu saa ugu dhufano waa inuu noo saaro channelkeenii. xoogaa culays yaraa ku jira, laakiinse khasbiyan waa inuu soo saaro channelkaagii. maamtidkana samaysatay. saa ugu dhufatay. internetka ayaa naga yar culus, laakiinse waa afka inoo saaraya. muhiimaddu waxaynu inoo saaraya afkii. haddaynu isticmaalno taab kale aynu ku darsano, taab saddexaad baynu ku darsanaynaa. markan waxaynu ku darsanaynaa kabaynu ku darsanaa. waxaynu ku darsanaynaa calculatorkaas oo kale aynu ku darsanaynaa. ama waa ka noqonaynaa.
oo mid kale oo ka fiican calculator-kan ku darsan document-gan ku darsanaynaa. Document-gaasaan ku darsanaynaa. Waxaynu odhanaynaa browser-ka ayay ku dhufanaysaa. Hadda oo kale waxaynu soo gashanaynaa sawirkaasaynu soo gashanaynaa. Ama waxaynu soo gashanaynaa sawirka inagada waxaynu soo gashanaynaa document baynu soo gashanaynaa. Waxaynu soo gashanaynaa kaasaynu soo gashanaynaa. Waxaynu odhanaynaa halkaynu ka tagnay waxaynu odhanaynaa document baynu odhanaynaa halkaa. Noo raadinayaa aynu eegno suu ekaanayo. Waa kaa haddaynu document ku dhufano document-geena ayuu noo saarayaa. Waa inuu document-ga noo saaraa. Maanta casharkeenu intaas ku ekaanayaa. Waxaa noo hadhay markaan sidaynu ula soo degi lahayn abkeena iyo sidaynu publish u samayn lahayn abkeena ula soo degi lahayn. Markaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas inoo ku egaanaya maanta casharkeenu.